السلام عليكم. موضوعنا maanta wuxuu ku saabsan yahay hadduu Allah awood la ogolaado dhibaatadan biyarida ee ka jirta caalamka ma u horseedi kartaa adduunka in uu ka dhaco dagaalkii saddexaad ee adduunka. 70% dhulka waxa ku daboolan biyo. laba dhibic 5% biyahaas waa la cabi karaa. kaliya biyahaas 1% ayaa si fudud loo heli karaa. maanta in ka badan 663 milyan oo dad ah ayaanan helin biyo nadiif ah. biyahaas wasakhda ah oo saacad kasta ay u dhintaan 200 oo carruur ah. qaybaha labaad ee ka midka ah adduunka dadku waxay isticmaalaan 3 galaan ama litir oo biyo ah maalintii. waxay u isticmaalaan qadarkaas biyaha aynu soo sheegnay in ay dadku ku xaajo gutaan. Chennai waa mid ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn dalka India. magaaladaas oo ay ku nool yihiin in ka badan 7 milyan oo ruux. balse magaaladan hore ayay ugu dhammaadeen biyihii ku jiray dhulka. sidoo kale qaybo badan oo adduunka ah ayaa iyagana wajahaya xiisad biyo yari ah. haddaba waxaan haysanaa ilo kooban oo biyo haraa ah. dhibaatadan biyarida ah waxay horseedi kartaa dagaal loogu jiro ilaah biyaha iyo weliba suurtagalnimada in ay dadku isku dilaan biyaha.